فؤاد آذن عدي oo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud oo maanta u waramay TV-ga Tom Cable TV iyo telefishinka qaranka Soomaaliland isagoo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu tilmaamay isla markaana uu beeniyay warar ay warbaahinta Soomaaliland muddooyinka ugu dambeeyay ay baahinayeen kuwaas oo salka ku hayay inuu Fuad ka goostay dalkan Soomaaliland isla markaana uu bedelay qadiyadiisa ku aadaneed qarannimada Soomaaliland wallahi niyadeyda kuma soo dhicin habeenayna Soomaaliland ka tago xudun baan joogay xudunna waa Soomaaliland ciidamadii qarankaan wada joognay maamulkii baan wada joognay niyadeyda kuma soo dhicin waxaan filayaa inaan ku soo dhacaynin inaan Soomaaliland ka tago waxaan horaan u iri markaa dhinto waan ka tagay inkastoo uun iyada ciideedii laygu xabaalayo markaa taasi waa mala khalada weeye waan ku celinayaa waa mala aan jirin oo khalada anigu waxaan jecelahay Soomaaliland dadka way ka dhaxaysaa anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliland waxay u baahan tahay dhulbahanta oo noqda Soomaaliland isku raaca dhulbahantana wuxuu u baahan yahay inuu Soomaaliland noqdo noloshiisa iyo naftiisa iyo future-kiisa iyo siyaasadiisu dhulbahanta Soomaaliland bay taala cid kale ay wax la leeyihiin ma jirto halkan baa noloshoodu taala halkan ay wax ku leeyihiin dad badan oo dhulbahanta waxaan ku diidaa waxay yiraahdaan isaaq wax ma inoo ogol yahay warbal kugu dhacday isaaq waxaan waynu leenahay ma inaad barida ma de waynu leenahay waa qabsanaynaa waan waxba noo ogashin maya weeye anigu waxaan aaminsanahay cali khaliif maanta iyo aqli iyo cilmi iyo maskax uu maanta dagaal ku galo ma qabo anigu ma qabo inuu wadada raaco waxaan qabaa inuu Soomaaliland la xisaabtamo inuu yiraahdo dhiga xitaa 23 sanadood ee naga maqan xaqayagii Soomaaliland ku maqan yahay inuu raadiyo xabsada Soomaaliland markuu joogay waxna waa ka sheegi jiray waana murmi jiray waana wada hadli jirnay laakiin hadda hadduu garowe aaday waxba ka sheegi maayo Fuad Aadan Cadde oo ka soo kici timay degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa waxa uu maanta soo gaaray degmada Burco ee gobolka Togdheer waxaana safarkiisaasi ku helinayay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo xubno kale oo kamid ah wafdigaasi Fuad ayaa waxa uu si ku meel gaar ah ugu hakaday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana martiqaad ballaaran magaalada Burco uu sameeyay duqa degmada Burco Maxamed Muraade iyadoo martiqaadkaasina ay ka soo qayb galeen guud ahaanba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco cuqaal iyo waxgarad reer Togdheer iyagoo halkaasina kulan ay saxaafadu dabajoog ka ahayd ku yeeshay guud ahaanba Abdisataar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.